dowladda Kenya ayaa maanta sheegtay inaysan ogolaan doonin in alaab xamuula oo aysan cidna la socon ay diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya geliyaan dalka Kenya. bayaan ka soo baxay dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in shixnad kasta oo sidaas la wareegi doono kadibna la burburini doono si waafaqsan xeerarka gaadiidka hawada. dowladda Kenya waxay ogaatay oo ay walaac ka qabtaa shixnado badan oo aysan cidna la socon oo ka imaanaya Soomaaliya. tani waxay jibinaysaa xeerka caalamiga ah ee gaadiidka waxayna soo rogaysaa halis amni ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay dowladda Kenya. sidaas darteed dowladda Kenya ma ogolaan doonto in alaab aysan cidna la socon ay ka soo gasho dalka Soomaaliya. diyaarad kasta oo arrintaas samaysana waxay qaadi doontaa mas'uuliyadda. arrintan ayaa u muuqata mid cadaadis xoogan lagu saarayo ganacsatada Soomaaliyeed oo markii hore awoodi jiray in ayagoo dalka jooga ay alaabo u diraan Kenya, kuwaas oo markii ay halkaas tagaan ay la wareegi jireen ganacsato kale oo xiriir shaqo ay kala dhaxayso. go'aankan maanta ka soo baxay Kenya ayaa qayb ka talaabooyin dhowr ah oo Kenya ay ku cadaadinayso dowladda Soomaaliya oo ugu dambeysay viisaha ay xubnaha dowladda Soomaaliya ka qaadan jireen garoomada Kenya oo ay joojisay. Kenya ayaa doonaysa in Soomaaliya ay ku qasabto inay ka laabato dacwadda taala maxkamadda caalamiga ee la xiriirta badda Soomaaliya ee Kenya ay sheegatay, waxayna Nairobi doonaysaa in arrintan lagu dhameeyo miiska wada hadalka.